waxaan rabaa inaan halkan aan la wadaago dhammaan shacabka ku nool caasimadda dalka caawa oo taariikhdu tahay 1 bisha 2024 halkan waxaa ka socota shaqo ay runtii hormuud u tahay ciidanka qaybta guud ee nabadgelyada wadooyinka ayagoo kaashanaya maamulka gobolka Banaadir oo nagala joogo agaasimihii waaxda nadaafadda iyo bila soo celinta caasimadda runtii shaqooyinkii ciidanka nabadgelyada wadooyinka ay u xil saarnaayeen oo ah magaaladan oo duruufo kala duwan soo martay oo waqti dheer runtii soo kabanaysay burbur baahsan iyo qalalaase iyo colaado ay ka soo gudubtay kadib waxaan qorshaysanay inaan waajibaadkii naloo idmaday aan horay aan runtii u galno oo ay kow ka tahay soo celinta bilicda amniga ciidanka nabadgelyada wadooyinka ay u xil saaran yihiin arrimaha sharciga iyo dhaqangelintooda iyo xoojinta dhaqaalaha maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe intaba shaqooyinkaas oo aan u xil saarannahay qaybo ka midana waa ka soo shaqaynay qaybihii kaleetana waxaan bilownay caaway waxaan ka howlgalnay isgoyska dabka ilaa iyo isgoyska Banaadir phase 1 waxaa noo qorshaysan inaan samayno tabeelayaalkii chiefka iyo tabeelihii joogga ahaa oo amarada siinayay dadka gaadiidka ku isticmaala caasimadda dalka runtii waxaan noo xigi doona inaan samaafarihii yacni ay xaqa u lahayd magaaladan inaan asagana xirno oo uu runtii gacan weyn ka geystay amaba uu sabab u ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir in magaaladan lagu bilaabo qaybtii koowaad waxaan rabnaa marka caaway oon meesha u soo istaagno dadka ku nool caasimadda dalka gaar ahaan gobolka Banaadir inaan halkan digniin uga jeedin sideeda laami ama jid wuxuu ka mid yahay kaabayaasha dhaqaalaha dalka waxaa loogu talagalay laamiga inay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha keliya waxaa jira oo kale oo laamiga barbar yaalla marshabiyadii loogu talagalay inay ku kala badbaadaan gaadiidka iyo dadka shacabka waxaan halkan digniin uga diraynaa dadka shacabka ganacsatada shirkadaha dadka magaaladan ku ganacsada oo ka dhigtay marshabiyadii bulshadu inay baabuurta uga badbaado loogu talagalay suuqyada ganacsiga qudaaray ku gadaan qaaday ku gadaan hilibay ku gadaan biray ku mudeen marshabiyadii baabuura la saartay laamiga dhexdiisa baabuura lagu dhaqaa laamiga dhexdiisa baakina laga dhigtay waxaan rabaa caawa aan meeshaan u soo istaagnay inaan digniin kama dambaysaan u dirno jidadka iyo marshabiyadiga lagu ganacsanayo laga bilaabo maalinka sabtiga oo taariikhdu ay tahay 3 bisha qofkii loogu yimaado jidadka dhexdiisa mas'uuliyad darradii ka dhalatay ayadaa qaadaysa waajibaan ka gudanaynaa ciidanka qaybihiisa kala duwan sida ciidanka ilaalada deegaanka xamar ee milishibiyo ciidanka qaybta guud ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka iskaashanaya waxaan rabnaa inaan bilaawno jidadka dadka caadaystay oo suuqyada ka dhigta inaan ka saarno waxaan inka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad shacabka asagoo qiimo badan noogu fadhiyo inay jidadka banneeyaan maxaa kaloo jidadka ay degan yihiin ka dhasha haddii cadowga khawaarijta argagixisada ay shacabka inay dhibaateeyaan ay rabaan dhimashada iyo dhaawaca iyo dhibka ugu badan dadka uu gaaro dadka laamiyaalka dhexdiisa ku ganacsanayo waay soobe 2 jeer wixii ka dhacay dadkii dhintay meel kale kama isa imaan laamiga dhexdiisa kulligood ku ganacsanayeen mas'uuliyadda naga saaran dadka shacabka nabadgelyadooda maalkooda iyo sharafkooda marka annagoo ku dadaalayna in aan badqabkiina ka shaqayno inaad cadow noo aragtaan wax fiican maaha
waxaan inkaga digaynaa ka guura jidadka dhexdiisa taariikhda ugu dambaysa oo aan idin siinana waxaa waaye inaan sabtiga laynkugu imaan jidadkan shaqaan ka qabanaynaa mas-uuliyaddii gobolka iyo mas-uuliyaddii ciidanka nabadgelyada waddooyinka ka qabanaynaa adeer wabilaahi calaykum jidadka ha la banneeyo midda kaleeto laami markii la dhiso wuxuu u baahan yahay sida bini'aadanka loogu labiso in loo labiso sida bini'aadanka dharka looga beddelo in looga beddelo haddii jidka uu labis waayo macnaheedu waxaa waaye meeshaas waa qaawan yahay jidkii caasimadda waxaan ka wadaa haddii uusan lahayn xeerkii nabadgelyada waddooyinka iyo shuruucdii waddooyinka lagu maamulayay iyo sidii isu socodka gaadiidka ee shacabka loo hagayey iyo qalabkii lagu hagayey haddii uusan u dhammaystirnayn dhimashada iyo dhaawaca iyo sharci darrada iyo gaadiidka isgarbinaaya iyo mootooyinkan dhallinyarada waddaa aysan aqoon u lahayn waddooyinkan sida loo maro waxaa ka dhashay wax aan annaga xogtooda aan hayno yacni habeenka ugu yar 24 saac war subaxeedka aan dirno 5 qof 6 qof 3 qof ayaa ku dhimata caasimadda oo shil u dhimata 10 qof 15 qofna way ku dhaawacantaa taasna waxaa sabab u ah yacni in aan sharciga nabadgelyada waddooyinka la ilaalin iyo in annaga shaqooyinkii inaan qabanno ay ahayd duruufo badan oo naga hor taagnaa awgeed aan qaban weynay laakiin hadda waa soo istaagnay waa soo diyaargarownay waxaan rabnaa dadka shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ciidamada gaarka ee u diyaarsan ee nabadgelyada waddooyinka in ay nagala shaqeeyaan loona hoggaansamo sharciyada dalka haddii ilaahay yidhaahdo aad iyo aad u mahadsantihiin shaqadan waa soconaysaa qofkii jidka loogu yimaadana tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadaya jidadka ha la banneeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu